السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيمكن waxaa loo yaqaanaa in la ogaado ama loogu talagalay qofka feejignaantiisa ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo attentiveness. In la ogaado qofkani inuu muddo yar oo ilbiriqsi ah uu dhowr waxyaabood ku kala saari karo ama uu ku ogaan karo ama isagoo meel maraya haddii ay wax ka dhacaan daqiiqado kadib meeshaas wax laga weydiiyo inuu isla markiiba wax ka sheegi karo. haddaba aynu ka jawaabno sawirkan kor ka muuqda iyo kan hoose maxay ku kala duwan yihiin. 5 waxyaabood ama 6 waxyaabood isku day inaad hal daqiiqo ama wax la mid ah ku sheegi karto. Let's go. Kan ugu horeeya waa kaas oo ah in weelkaas uu wax ku jiraan ama bur ama sonkor wuxuu ahaada kan hoose laakiin uu maran yahay. qaadadan hoose waa nadiif halka qaadada kore aad moodo inaysan nadiif ahayn. Okay, ka saddexaad fandaalkaas uu dolola ama dhibic buu leeyahay kan hoose laakiin ma laha. Okay, kala duwanaanshaha afraad koobkani 2 dhagood buu leeyahay kana hal dheg. koobkan 2 dhagood buu leeyahay kana hal dheg. kan ugu dambeeya intaynan gelin ka horeeya aynu taabano oo ah kalarka labadan koob inay kala duwan yihiin. kalarkoodu haddaad u fiirsato uu kala duwan yahay. hal mid baa hadhay waana ka ugu dambeeya. isku day qof walba balkaa inaad sheegto intaana sheegin. 10 second. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sheegteen baan filayaa waana kan